gabadhii kaadidii baan ka xaday waan cabbay iyadana nin naga mida allaha u naxariistay ayaa wuxuu cunay biyihii badda ayuu 2 jeer ka baday beerkiisii buu mantagay ninkii dhalinyarada hamaydkiina meesha uga dhaqaaqdeen shaydaanku wuxuu i dhahay haddaad ashahaadato nafta ayaa kaa baxaysa iyo meel yaro godow waadiye inta saa loogu ridaa ciidda lagu rogay geedo yar yaroo garan waa la saaray waa laga tegey gabadhii kaadidii baan ka xaday waan cabbay iyadana kulanti wanaagsan oo wacana ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada qaybtiisa markhaatiga nool oo ah barnaamij aanu alaaba ku wareysano dadka goobjooga u ahaa tacadiyadaha dhibaatooyinka dhiiga muqaddaska ee Soomaaliyeed ee maalayacniga u qubanaya iyo dhibaatooyinka kale ee ka soo gaaray burburkii dalkii Soomaaliya markuu dhacay bulshada Soomaaliyeed saameeyay barnaamijkan waxaa marti igu ah nin dhalinyaro oo la yiraahdo Maxamed Cali Maxamed oo asagu ku sugan dalka Mareykanka isla mar ahaantaana dhibaatooyin fara badan goobjoog u ahaa oo ay ka mid tahay 7 dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhintay gabdho Soomaaliyeed oo 215 maalmood meel go'doon ay ku ahaayeen asaga iyo dad kale oo fara badan lagu fara xumeynayay lagu jirdilayay si qayru caadiyana loogu xadgudbay niman kooxa ah ay midba mar siyaabo foolxun ay ugu tagayeen waa soo asagoo hadalka u dhigay waxaad kaloo barnaamijkan ku arki doontaa ku dhageysan doontaan ama ku daawan doontaan shakhsiyaad Soomaali ah oo ayagoo nool gawaarida laga tuuray saxarahana looga tegay si ay u dhintaan kadib markii naqasku uu ku dhagay oo ay dalbadeen in markaas la siiyo kaalmo caafimaad waxaad kaloo barnaamijkan ku arki doontaan Maxamed laftigiisa oo dil ka badbaaday dilkaas sidoo uga badbaaday ayaa ayada laftigeedu cajaa'ib leh oo ahayd nin asagu markaa af Soomaali ku hadlayay oo bahal dharbaaxa u dhiibay ilaa waagu u bariyay maxaa loo dharbaaxay maxaana ku kalifay ninkan inuu badbaadsho iyo Maxamed laftigiisa oo la kala iibsaday $450 baa lagu iibsaday nin weyn oo Soomaaliyeed oo geel jira ah $450 ayuu joogaa qab baanu lahaan jirnay dad jira ayaanu ahaan jirnay laakiin maanta $400 baa lagu kala iibsanayaa oo xoolaha qaarkood baad ka liidataa adigoo nin Soomaaliyeed ah oo ayaan daro waxaad kaloo barnaamijkan ku dhageysan doontaan laftigeedu Maxamed oo asagu laftigiisu arrin la yaab la sameeyay xilli uu naftiisa badbaadinayay taas oo ah waa soo hadalka u dhigaya inuu cabbay kaadi bili aadan balse kaadidii haatan loo haysto uu cabbay sidee arrintaas ku dhacday waa waxyaalaha aad barnaamijkan ku daawan doontaan dib u fariista noona ogolaada inaanu barnaamijkan idin soo gudbino maxamed oo ku soo dhaweynaya barakallahu fiikum cabdixafiid allah ku xaftiyo fi dunya fi aakhirah aamin kulligeen waxaan rabaa in aan haddii ilaahay yiraahdo sheekadaadu aad bay u dheer tahay aanu qodob u dul istaagno mawduuc istaagno iyo siday wax u dhaceen aan idhaahdee maxaa kugu dhaliyay markii u horreysay inaad tahriibtid oo aad ka soo tegtid gurigii iyo dalkii hore barakallahu fiikum wuxuu yidhi cabdixaafidow Soomaalidan qariiban kaa qoloqolo u dirirtadan hab qabiilku doodada qiimaheega aastadan qarankeyga dumisadan ubadkeeda qalatadan qaadir bay iga dhaliyo qalbigay hulcaayee qiso yaab la weeyey xaggeen uga qaloodaa waxaa igu dhaliyay cabdixaafidow haddaan soo noqdo su'aashaadaas waxaan ku dhashay nawaaxiga gobolka Boorame gaar ahaan qaybta xagga Itoobiya gobolka Doollo u xigta anoo yar bay hooyaday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya dhimatay kadib waa Boorama soo galay waa ka socdaalay Djibouti baan galay Djibouti anoo joogo ka shaqaysanaya ayuu nin saaxiibkay oo Switzerland joogay gacanta igu soo laabay sidaasaan ku soo dhaqaaqay waa gartay aad iyo aad baa u mahadsantahay intaanaan tahriibkii guda gelinin waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo gobolka Doollo waxuu ka tirsan yahay Soomaali galbeed Itoobiya ma lahan dhul Soomaaliyeed oo la haysto weeye waayahay
waxa dhacday in aad markaa tahriibtay oo aad u tahriibtay Eritrea socdaalkiinina halkaa uu ka bilowday adiga iyo nin kale oo deegaamadaas aad joogtay ka soo jeeday iyo group kale oo koonfurta Soomaaliya ka soo jeeday imise qof baad ahaydeen gebigiinuba isku geyn 8 baan ahayn 8 rag oo Soomaaliyeed 8 rag oo Soomaaliyeed 6 ninna ilmaadeer tahay labana aanu isdaaneen kala isku aabeen inkastoo Soomaalinimo haddana isku heshiinaynay rag adulle 8 aan ahayn Soomaaliniman isku heshiinaynay ayuu ku leeyahay laakiin markay naftu timaado waxaad ogaan doontaan daawadayaal in naftu ay orod kugu aaminto qof walba meel cidla looga tagay waxaadna maqli doontaan dhawaan wiil Soomaaliyeed oo beerkiisii ma tagay geerina qarka u saaran iyo waliba Maxamed Cali Maxamed oo ka baqay inuu ashahaato shaydaano waswaasiyay xaaladaas sidee ku dhacday qaaba qowsayn bay maraysaa waayahay Maxamed ku soco 8 rag oo Soomaaliya tihiin kimis iyo kalluun baad qaadateen oo sahay u qaadateen lugtaadna furteen waxaanu tagnay xirada la yiraahdo Mukulli oo ku taala magaalada Musawac agteeda habeennimo ayaa dumar meesha joogo xiro qaxooti ahayd noo sameeyeen sabaayad yar iyo kalluun marka loo yaqaan Omar oo kalluunka qasaacada ku jira socod baanu cagta furnay socodkii markaanu cagta furnay aanu saadigu 9 cisho kolba dhinac u soconay adduunkii baa naga dhamaaday raggu intaa wuxuu cunayaa kiniin baabiiye kii muruqyada nin naga mid ah Allaha u naxariistay ayaa wuxuu cunay 2 midho kiniinkii muruq baabiiyaha ah iyo kii daalka ah halka yara dul istaag muruq baabiiye waa maxay macnaheedu yani muruqyada ayaa ku soo baxaya markaad in badan socoto kiniinka marka intana daalka dhanba ka tagayo dadka kale inta badan magacyo kala aban uu naqaano barkood waxay magacyo dad baaban ugu yeeri jirnaa waa kiniin adigu ama Yusuf oo kale ama Rayaal oo kale la oran jiro waa kiniinada hurdada oo yani hurdadana daalkana ka biinaya socodna ku siinaya energy laakiin marka sidaad in badan u socotid marka dhowr kiniin oo kala kaana cunto anad cuntana cunin xaalad way cuslaanaysaa dhowr kiniin oo kala kaana biyihii badda ayuu 2 jeer ka baday beerkiisii buu mantay daqiiqada kadib tamarinaguma jirto oo waxaanu nahay rag 9 cisho lugeynayay macawsii baan hareeraha u qabanay kelmaddii ugu dambeysay waxay ahayd ashhadu laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah intaas markuu yiri iyo dhinaca u dhacay waa la kala yaacay walba garan yar iyo surwaal yar ninba dhinac buu dhaqaaqay xabad kalluun aan gacanta ku dhigay cabaar markaan ordayaan isii warmaada rooraya mise geedka kalluunkii qasacada ku jiray weeye haayaan afka ku riday intaan dabalkiira ka jaray kadib leen saliidii wixii baa maskaxdayda saaqay waxaan isla warmaada rooraya mise dhirtana kugu soo yaacaysa ninkii dhalinyarada hamaydkiina meesha uga dhaqaaqdeen markuu ashhadu laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah yidhi dhacay ayaanu kala yaacnayba hagaag daawade halkaas qofka looga tegayo waa mid idin ka mid ah jidka ku soo socda hooyada kuma oga aabaha kuma oga rafaadkaas iyo silacaas ayaa ka horeeyay iyo in badan oo ka fog iyo in lagu iibsado oo waliba lagu faraxumeeyo way ku soo socotaa ku soco Maxamed kadib markaan sidii u yaacay gelin orday meel baan fadhiistay saasaan u dhacay waxaan damcay quraan halkaas isha iga qaniintay inaan iska soo qaado gacantaydii soo qabto waa soo qaban kari waay gacantaydii waan soo toosin waay inta badan quraanjadu waxay ku ururtaa cawrada ragga iyo indhaha iyay ka gashaa quraantii halkan iga gasho waa iska qaadi kari waay tii halkan hoosta iga qaniintay waa iska goyn kari waay shaydaanku wuxuu i dhahay haddaad ashahaadato nafta ayaa kaa baxaysa because waxaan isku seefgareeyay ninkii saaxiibkay ahaa ashahaada ayaa ugu dambeysay kelmad qaali ah laakiin kastoo naftiisii waa ilaahay ha u naxariisto anigana waxa igu seefgarowday haddaad ashahaadato bes way kuu dhamaatay inaad ashahaataan damcaya shaydaanku wuxuu leeyahay oo ashahaadan waad dhimanaysaa haddaad ashahaadato dhimashada ninna ma jecla inkastoo ninna ogeyn saacadiisa ilaahay cilmigiisa ilaahay barbirisu ii bixiyey waxaan ku war helay anigoo foosta biyo ah ku dhex jira oo foosta gobol saa loo kala jeexay oo meel xira ciidana oo xirada ciidan waxa weeyaan markab Soomaaliya lahayd waqtigii Itoobiya ay dagaalamayeen Soomaaliya maraakiibtii la siiyay oo lagu gubay meesha ciidan degan oo foosta biyo la igu dhex riday oo iyaan soo ambabaray markii tan sida kalluun biyo ka soo baxay oo kale soo booday
waa ay qabteen nimankii carabiga waxooba ay bilaabeen waxay igu yidhaahdeen warniyow maxaa tahay waxaan idhi Soomaali baan ahay waxay igu yidhaahdeen markaa dagaaladii iidaala socda waxay igu yidhahdeen adigoo Soomaaliya oo og oo muslina inaad dhimanayso maxaad uga timid inaan dalkaaga maxabash baad uga soo carartay miyaanad ogeyn bay yidhaahdeen weli waa kelmadda maskaxdayda aan ka bixi karin miyaanad ogeyn Falastiin haddii ay weydo qoriga xajarka iyo xadabka ayay ku dagaalamaan dhagaxa iyo qoriga miyaanad ogeyn waa yaabay adigoo soconay soo ururinay raggii biyo iyo buskudiyey wax la qaad la soo ururi dadkii la soo ururi qaadnay biyo iyo buskudkii ninkii meydkii meeshii ugu tagnay wallaahi macawis inta loo kala jeexay iyo meel yaroo godow waadiya inta saa loogu ridaa ciidda lagu rogay geedo yaryaroo garan waa la saaray waa laga tegey waa dhibaatooyinka ugu xun intaa horena waxaan maqli jiray saxaraha soo marina dhibtaasaa taalla meeshuu isaguba marwadiga soo marin kuleeyahay ugu seef garaysnayd waa gartay muddo 9 maalmood raali maxamed muddo 9 maalmood ayaad ku jirteen tiihaas iyo isdaba wareegaas waxaadna dib ugu soo noqoteen meeshii markii hore aad ka bilowdeen socodkaba absolute saasan meeshaan ku soo noqonnay casmaraa lana geeyey waxaan ugu tegnay sheekh axmed iyaan dhihin shariif sakiin iyaan ugu tegnay ina xuseen caydiid shariif xasan sheekh aadan barakallahu fiikum itosi iyaan ugu tegnay xuseen caydiid lacag bay noo qaybiyeen waxay yidhaahdeen nasta waxaa lana idin geynayaa meel ciidamo jabhadda ONLF ay ka dagaal lagu tababaraya la idin geyni dalkiinnii baa tiin Eritreankii waxay yidhahdeen war waddankani waa waddankiinnii labaad idinkoo nasanaya un ka soo qaada adigu halkii la nagee lacagtii yare lana siiyey ileen rag waxaa la yidhi nimay meeli u caddahay meeli u madoowe lacagta marka ma waxaa idin siinaya labada shariif iyo xuseen caydiid wallaahi lacagan caadi ahayn bayna siiyeen oon dee iyagu waxay lahaayeen dadkani magaalada ha ku joogaan iyo kaamkaa kula qabsanay laakiin annaguna barnaamij kalaa noo furnaayo dameero iyo biyo iyo waxbaan ku kiraysanay dhabaha ayaad cagta saarteen suudaan baad ku socotaan dhabaha ayaan cagta saarnay suudaan baan ku soconnaa xuduudkii suudaan markaad gaarteen maxaa dhacay suudaan markaan gaadhnay waxaa dhacay markaan xuduuddii suudaan gallay boor suudaan baa ugu dhow suudaantii waa naga hor yimaadeen waxay yidhaahdeen sheekh shariif ma taqaanaan waa gart markaas sheekh shariif ma taqaanaan la yidhi haa bay yidhahdeen raggii intii ugu badnaa waa lana soo dhoweeyey burka caanaha adduun baa farta lanaga saaray dhowr nin bac baa ku xidhanto waxaa markaa gobollada waqooyi ka yimid waxay yidhahdeen haddii ay sheekh shariif waa naqaanaan idhaan ama arjacu min beledi la yidhahdo la isceliyaa ma naqaanay yidhahdeen intii cuntada iyo wixii lana siinayey gooni baa loo bixiyey iyo ka adu kadib waa la isku kaayo soo daray ilaa khartuum baa cagta saarnay ilaa khartuum kadib markaan halkaas inaan dadka yara fahansiino maxamedow shacabka iyo dowladda reer suudaan baa sheekh shariif markuu madaxweynaha ahaa taageersanaa saasaa laydiin soo dhoweeyey wallaahi si ayn madaxweynahooga u taageersanayn ayaa loo taageersanaa sheekh shariif waa gartay ku soco boor suudaan baad gasheen boor suudaan markaan gallay ilmaha yar ee dukaanka gadaya ay subaxii markaad dhex marayso sheekh shariif buu kuugu yeedhayaa weligii isagoon arag sheekh shariif siir yaa sheekh shariif siir yani waa hore u soco sheekh shariif oo moogta yuu ku leeyahay adigoo dariiqa iska mari markuu ku arkay Soomaali tahay siir yaa shariif buu kule waa yaabnay war nimankan idinkana maxaa qaldan waa kan ilaahay waa isku kiindiray qolo iyo qabiil iyaad isku haysataano suudaantiina waa tan adigu tagnay meeshii khartuum alcamuum khartuum markaan tagnay niman makhalasiinaan ugu tagnay calaa nin waxaa laga qaadayaa $550 oo lacaga dadka dilayaayo waa nimanka khartuum jooga runta marka laga hadlo walaalow sababta dhan iyagaa le because 550 buu kaa qaaday stiig yaroo biyo ah iyo buskud yar buu kuu saaraya wuxuu ku leeyahay gaadhigan cabdibilihi Tripoli ayuu toos kuu geynayaa kumana geynayay marka uu waxoogaa 150 kilomitir magaalada kaa saaro iyo xurriyad kuugu dambaynaysa halkaasaa lagugu ururinayaa lagugu iibinayaa ilaa aad 300 ilaa 250 qof gaadhaana laguma qaadayo waa gartay intaan iibiskan iyo leedin geyn saxarihiina aad u sii socotaan waxaa jirtay nin Soomaali ah oo shilis ahaa ama hilib badan lahaa oo naqasku uu ku dhagay maxaa ku dhacay ninkaas xaaladiisu maxay ku dambeysay amdurmaam afkeega marka aan ka dhaqaaqnay
iyaa meeshaas 2 wiig dadka lagu ururiyay durmaafkeyga aan ka dhaqaaqnay iyo nin aad u buuran oo jaamacadda Khartoum dhiganayay buu ahaa ninkii naqaskaa ku dhegay naqaskii markuu ku dhegay gaadhigii ka warkiisii baan garaacnay waxaan ku dhahnay warniyo nin ayay neeftii qabatay waa dhiman rabaa biyo iyo wax keena waa soo degay nimankii way dhaheen ninkii sagxadda gaadhigoo dee meel la kala joogsada aan lahayn foostooyinka la fuushin dhab intay siiyeen bay tuureen markaas waa yaabnay war dadkan waa maxaa qaldan asagii oo loo naqaskii ku dhegay baa saxray lagu tuuray iyo saxray lagu tuuray horaa loo sidaayay dadkaan ogeyn saxarahaas inuu qofku ku badbaado asagoo naqasku ku dhegay iska daayay asagoo naqasku ku dheganayn oo biyana aan haysan baadna aan haysanin sawran ka bixin karta qofku haddii uu saxarahaas biyo iyo baad sheegaysaa haddii uu xitaa gaadhi saaran yahuuna adduunyo haysan inkastoo ajal loo dhinto way adag tahay sida uu ku noolaa because cadceedu marka ay dhacdo waxa leefaysa bahashii la oranayay uulayda iyo isla markaaba kala goosanaysa waa gartay waxaan rabnaa arrintaas ninkii gaarigii waa laga tuuray geeri iyo nolol meel kuma ogin laakiin in all probability waxaan oran karnaa qiyaas ahaan ninkaas allaha u naxariisto jannadana allaha geeyaan oran karnaa ilaa ay haatan waxaad daawanaysaan waa qofkii labaad ee Soomaaliya uu Maxamed goobjooga u ahaa geeridiisa waa markhaatiga nool ee soo maray halkan jidkan qodaxaha badan ayaa lagaaga digayaa muwaadin inaadan hooyada gablaminin aabaha gablaminin walaalaha aadan cidlo uga teginin risuqu waa qoran yahay qofkii labaad baa idinka dhintay wadadii baa ku sii socotaan mar dhowna adiga laftigaaga miiska lagu saaraya oo lagu iibinaya ku soco marka wadadii aan cagta saarnay waxaa lana keenay meel la yiraahdo kala wareegga xuduudda Suudaan iyo Liibiya meeshaas markii lana keenay waxaa dhacay waxa ka hor imanaya niman iskaga ka dhigaya hay'ado culimo ee rag musheekho waaweyn waxa lagu leeyahay wixii sangali gooni ha u baxo wixii cayleehina gooni ha u baxo ama dadkii isqabayna gooni ha u baxaan dadkan isqabayna gooni ha u baxaan waaye wixii hablay gooni bay u baxayaan wixii ragii gooni bay u baxayaan cid isqabtaabada ma jirto waxaad arkaysaa marka la yiraahdo wixii naagii gooni ay u baxaan hablihii waxaad maqlaysaa daqiiqada kadib ee la idin wada kala iibsado waxaad maqlaysaa yaa gaxba yaa sharmuuta waxaad arkaysaa gaadhiga dabadiisa oo gabadhii inta dharka lagaga saaray midna naasaha xajinayo mid gadaal ka fuulayo mir horey ka fuulayo gabadhii oo ina hebel u garanayso oo isbarateen oo ceesho milixtiin oo saxaraha isla soo marteen iyaanad waxba u qaban karin maxamedow gabdhahaas waa ilmo hebel aad leedahay aad garanaysid waa Soomaali weeye waa Soomaalidii aan u garanayo sida kuwa ila dhashay oo kale aan u garanayo waaye waxaan garanayaa hadda gabadh Sahra Cabdi Maxamed la oranayay oo saxarihii iyadana dhibaatadaas intay ka dhacday gaadhigii lagaga tagay oo gaadhiga marka la riixayo waa laga qofkii carariya nasiibkii intii soo gaadhiyay intii gacantiisa soo qabatay bartii gaadhiga lagu riixayay oo niman ay degan yihiin dadkan la dhaha maxaa la yiraahdaa saxraawiintu ninkii la haray ay hadda waxa wallahi 2 wiig ka hor la ii sheegay 4 caruur inay ku haysato meesha hooyadeedii aabaheed ma oga waalidkeedii ma oga walaalaheed ma oga saxarihii iyo 4 caruur ugu haysaa nin xoolo dhaqataa waaye halkaa iigu yarahay maxamedow hagaag daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshadiisa qaybtiisa markhaatiga nool maxamed wuxuu ka warramayaa tahriibku soo maray waxaadna dareemi kartaa saamaynta qofka ay ku leedahay gabar Soomaaliyeed oo sidaa uu sheegayo loo faraxumeeyey ee nimanka ay faraxumeynayaan gawaarida gadaashooda ay ku fuulayaan ku bahdilayaan aadanna waxba u qaban karin saameyntay leedahay haddii adigii oo ninoo daawanayay maqlayay qayladeeda aad waxba ka qaban weyday ayadu sidee bay dareemaysaa kuwa badan oo jidka maanta ku soo jira waxa iyo wax ka foolxun ayaa sugaya maxamed ayaa nooga warrami doona sheekadaanuna waxay isku bedeli doontaa meesha ay haatan maraysa mid ka murugo badan si kale haddii aan idiin idhaahdo maxamed dhibaatooyin la kulmay uu goobjoog u hayo nooga warramaya ma doonay inaan ka hor dhaco bal idinku dhagiina ku dhageysta ku soco maxamed cabdixaafidow markaas anu sidii aan ahaanaba soo galay magaaladii Tripoli gurye iyo wax la kireysay dhalinyaradii la nabad markii la kala iibsaday danba wixii ilaahay laga bixiyay iibku marka 450 buu ahaa
inta aan lagu iibsanin ka hor waxa dhacday laftigeedu adiga iyo gabar Soomaaliyeed arrin idin dhex martay oo weli dayn la igu haysta kaadida gabadhii dayn igu haysato waxa jirta gabadh Soomaaliyeed sax say wuxuu dhacay dadka adigu sheeg waxaa jirtay gabadh Soomaaliyeed oo waxaan arkay 2 bilood iyo 15 cishaan meesha joognay waxaan arkay gabadh Soomaaliyeed oo hameenkii xaraad joogteen saxarihi kala wareegi waxaan arkay gabadh Soomaaliyeed oo caagad ku kaadshaysa waan gurgurtay caagadii baan gabadhii ka xaday kaadidii yani si aan naftayda ugu badbaadiyay iyadana aan wax ugu reebo kaadidu markii la ruxo waxay u dhandhantaa sida kooke ay siidha laga saaray oo kale iyo u dhandhan gabadhii kaadidii baan ka xaday waan cabay iyadana